idinku siin subxaana wa tacaala sharaf iyo wanaagna aad ku gaaraysaan adduun iyo aakhiro bacdamay xaaladdu sidaa tahay qof walba iyo gabar walbo adinka idinka mid ah ha ogaato xijaabku inuu waajib ku yahay 9 sano ayaa ugu fiican baa la yiraahdaa in lagu bilaabo gabadha walow hadda ay jiraan gabdha ka sii yar 9 oo hooyadii jilbaaban tahay muxaadaro u soo socota gacantay uga soo dhagan tahay teeda yar ayadoo jilbaaban waa wax aad iyo aad loogu farxo waa wax ilaahay loogu mahadiyo subxaana wa tacaala dumarku isku mid ma aha qaar baa aad iyo aad ugu nugul aayaadka alle qaar baa aad iyo aad ugu dadaalaya aayaadka alle subxaana wa tacaala qaar ayaa aad iyo aad u jecel muxuu rabbi yiri rasuulna yiri الله عليه وسلم سي حفظين با الله حفظ يا آيات قال لي حديث النبي سي خيرك وناق وجود دلالين با إله الدنود وجود دلالة يا سبحانه وتعالى آديات الدلالة ودونك وميل قابا ولا ليال هذا ما أنت إسقاوي سنارتنا لجوجو قويه إله سبحانه وتعالى كنعه بحولها النهارده لقاعد يجمعويجي يقوليا وحقي مبضن معها أدونك ووح خفيف أدونك ووحير أدونك وميل قابا أدونك ميل بوكو إجيهي ولا ليال وآديات الدلالة إلهي كعب صدا خيرك وناقها كدنا عمرنا رسولكينا جعلاده أمركي سفولية صلى الله عليه وسلم رسولكينا حطنا عمرنا آديات قدرية وإن بدنبو إذن قدرية وإن بدنبو إذن شرفة حجابك وحا هوس إمانا يا حشوتك هدا الحجاب أنت وضن حشوت لهين ننكستاد قعنت لقليسو كهيلبك قدنا لقا إلين كريم كيا يدك قدنا أتحتاج انتهي ككلنا أتقعنت لآدي ستالفتك إذا حجاب معها حجابك حشمت بوليه هي ولا ليال شرف أيو ليه هي ورا ريال شرفتي سو هجاجية هنقولين أنت السوق آيس كريم كعنا هنقولين أنت السوق كبوقة هنقولين أنت السوق واحد دونا كسمية حالها النوع سأدي تسقيل عليا ويا رب سبحانه وتعالى خيرك إيه وناك إيه حشمة الضمرك حجابك سو إلهي تحتك سبحانه وتعالى قبل حجابته اللاكتي سسدي وناكله تال حجاب أن نصانت المانا اللي عن نارد وعذابك وعبتان كذا زقوم إيه geedka dariicna waa tacaamkeeda kor iyo hoos iyo dhinac walbana waa naar ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay adduunku inuu wax yar yahay cadaabka xijaabka rabbi idin amray oo aad qaadataan haddii kulayl waaye iyo waxa aad dhahdaan naaru jahannama ashaddu harra law kaanu yafqahuun kuwa wax fahmaya hadii jahannama ka xanuun badan buu yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala wa kaana allahu ghafuuran rahiima waxay tilmaamaysaa xijaabku inuu yahay raxmad inuu yahay qabow inuu yahay khayr inuu yahay nimco inuu yahay sharaf inuu yahay wax aad iyo aad u qiimo badan xaaladaha saasi markaa ku jiraan waxaad u qoroleysaan oo aad u dadaashaan ha noqoto sidii xijaabka loo qaadan lahaa ee dadaalha u noqonina yuusan noqonin inaad madaxowdaan yuusan noqonin in wax kale lagu tilmaamo hayuusan noqonin in dharka laga dhigo wallahi gabdhaha gaalada gobolka mid ah ayaa waxa laga soo tabinayaa lowla la xijaabi lahaa qaar baa laga soo tabinaya low guryahana la fadhiisin lahaa qaar baa laga soo tabinaya low raggeena ay bannaanka nooga soo shaqayn lahaayeen qaar baa laga soo tabinaya oo laga soo warinaya low ilaahay subxaana wa tacaala sida gabdhaha muslimaadka ah khayrkan iyo wanaaggan uu u amray ayagana saasoo kale loo amri lahaa laakiin aaway kuweeni waxaalaasaa loo hanqaltaagayaa marka dawaarka la aadayo ee dharka la soo tolanayo harqaalaha gabdhaha gaalada goonadu say u tashaan baa meesha u yaala waxaad arkaysaa gabar fadhisa oo saa u baarbaaraysa gabar u tolan oo gabdhaha nooca intaqaana diinkan aysanin ah habkay u tolatay say u labisatay u labisanayaan say u tolatay u tolanayaan wiilasheena say tan u jaratay u jaranayaan xaaladahaasoo dhan baa la samaynayaa bacdamay xaaladdu saa tahay rabbi ha laga baqo khayrkii wanaaggan ha lagu dadaalo ilaahay subxaana wa tacaala wuu noo karaamaynayaa waana noo nimcaynayaa dumarkeena hadday noo wada xijaabtaan xishoodkan ay ku dadaalaan saxyaha iyo sariigtana ee sidii loogu talagalay ay ula yimaadaan rabbina suu amray ay markaa ula socdaan intaa wixii ka dambeeya ayuu rabbi yidhi waqarna fii buyuutikunna guryihiina iska fadhiya waa sida ugu qiimaha badan hadday damacdo ama si arrin timaado waxaa loo baahday inay dan yeelato waxaa loo baahday inay muxaadaro aado inay suuq ka soo adeegatay wixii markaa la mid ah markaasna bannaankaa u soo bixina sida ay jaahiliga u soo baxaan oo kale buu rabbi yidhi salaada ooga sakada hagaajiyoo bixiya rabbi ateeca rasuul ateeca ilaahay khayr iyo wanaag ayuu idin siinaya subxaana wa tacaala dardaarankeena wuxuu noqonayaa xijaabkii jalaabiibta in aad iyo aad loogu dadaalo
rabbina laga baqo subxaana wa tacaala. gabdhaha muslimaadka ah waxaan rabbi uga baryayaa khayrkii wanaag inuu ilaahay waafajiyo, inuu ilaahay jeclaysiiyo xijaabka, xishoodka, tabarrujka, inuu rabbi ka ilaaliyo, safarka maxram la'aanta inuu ilaahay ka celiyo subxaana wa tacaala, inay noqdaan gabdha khayrkii wanaagay ku dadaaleen, ilaahay subxaana wa tacaala la hortagaa, ka bacdina jannooyinkiisa qiimaha badan ilaahay kuu abaalmariyo subxaana wa tacaala. wax badan baan ilaahay ka barya inta xanuunsan caafimaad taam inuu ilaahay siiyo, inta murugaysan inuu ilaahay murugta ka qaado subxaana wa tacaala, inta muraad leh muraadkooda oo khayr ah inuu ilaahay u sakhiro subxaana wa tacaala. saan khayrkan iyo wanaaggan ugu kulannay ilaahay jannooyinkiisa firdowsa naciima iyo meelaha la midka ah rabbi ha nagu kulmiyo. allahuma aamiin, allahuma aamiin, allahuma aamiin.